kulanti wanaagsan ku soo dhawaada warka fiidnimo Shakaal TV qodobada ugu waaweyn waxa kamida magaalada Muqdisho oo wadooyin hore laga hirgelinayo gobolka Bari maxkamad halkaasi ku taala ayaa dhalinyaro ku xukuntay xukuno kala duwan kadib markii lagu eedeeyay tacadiyo magaalada Miami ee dalka Mareykanka ee gobolka Florida ayaa iyana maanta waxa ka soo hor muuqan doona madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan ama ku daawan doontaan wararka fiidnimo caawa isoo kale daawadayaal gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaaladaasi ayaa maanta dhagax dhigay wadooyin cusub oo laga hirgelinayo magaalada Muqdisho ayaa bariyay u dambeysay dhinaca kobaca marka laga eego dhismayaasha iyo waliba bilicda isa soo taraysay marka isxilqaamka oo runtii aan aad u jecelahay dadku inay gartaan inay ayagu leeyihiin waxa ay qabsanayaan say hadhow uga ilaashadaan cayayaanka ku ciyaarayo waxay keenaysaa in wax la isku darsado oo waxda la wada yeesho waxaan ogaanay dawladdii markay dhacday xilligii dawladdii kacaanka markay dhacday wixii danta guud ahaa waxaa laga dhigay wax dawlad la heeday oo cadaawo loo muujinayo la dagaalamaayay laamiyada xataa waa la jeexjeexa berigaas oo ogsoontihiin dirbiyii dawladda waa la jajabshay dukumiintiyadii dawladda waa la jeexjeexay waxaasoo dhanna waxaa laga dhigay wax dad lahayaa laga dhigay wax dadku inay leeyihin looma sheegin marka waxaan rabnaa dadku inay leeyihin inaan u sheegno $1 dalkaaga ku dhiso $1 markaan leenahay haddii Faadumo $1 laga qaaday Saynabna $1 ay ku darto Calina $1 ku daro Cumar $1 oo ku daro Khadiijana $1 ku darto annaga hadda waxaan gelin annaga iskale waa business aan wada leenahay waa wada fiican mashruucaas cidda ka dhamay karto waa hooyooyinka gabdhaha waa markay albaabadana garaacaan iskuulaadkana ay tagaan ardadana ay ku baraarujiyaan yiraahdaan baabe $1 tuur oo dalkaaga ku dhis $1 tuur cunuguna waa heli kariyaa hooyadana waa heli kartaa gabadha yaayada gadana waa heli kartaa midda suuqa soo aadana waa heli kartaa marka meesha aad $2 oo yaaya aad gadi lahayd $1 oo yaaya gad $1 waxaad ku shubtaa akoonka dalkaaga ku dhis $1 horena waan u sheegnay qoraalna waa ka soo saarnay wado iyo marshabiyeedi dan guud waaye shakhsi kuma danaysan karo lama jajabi karo go'aankaas mar horaan ka qaadanay waana ku mahadsantihiin inaan wasaqda iyo biyaha ka ilaalinana maxaa yeele markay carro laamiga soo gashay biyana soo galaan laamigaas waa dilaacayaa marka yaa kuu dhisaaya marka jidku waa noo dhagax dhigan yahay waxaan rajaynaynaa 2 bilood ama bil gudahoodba inaan haddii la iraahdo asoo saan ka qurux badan hadda ismalid meeshaana wado ahaa jirta ismalid say u baabaasantaa waxaan rabnaa marka alxayaadna waa ku mahadsan yahay asiguna wuxuu fursad u yeesha maanta hortiisa inaan dhagaxi dhigno oon markhaati uga dhigno inaan jidkaan dhisayno haddii ilaa yidhaahdo guriga marka quruxda waxaa waddada waa quruxda magaaladaada iyo suuqa iyo meesha aad joogto quruxdeeda waa wado maxkamadda darajada koobaad ee ku taala gobolka Bari ayaa 5 dhalinyaro maanta ku riday xukun kadib markii lagu eedeeyay inay tacadiyo u geysteen qoys dhalinyaro oo halkaasi ku nool arintaas oo bariyay u dambeysay ay ka dhalantay hadal hayn xoog leh maxkamadda darajada koobaad gobolka Bari Boosaaso waxay u fariisatay dhageysiga garmaqalka 5 eedeysane maxkamadda hortaagan dibanayaasha ka yihiin 3 dhibane ee maxkamadda hortaagan dhageysiga maxkamadda kadib dhamaanshaha dhinacyada maxkamaddu markay aragtay eedda xeer ilaalinta ee u soo gudbisay eedeysanayaasha kala ah Yuusuf Axmed Cali ina Xaliime Xaaji 18 jira Saacid Cabdirasaaq Cismaan ina Kiin Yuusuf 19 jira Cabdalle Axmed Maxamed ina Maryan Xaaji 16 jira Cabdinaasir Jaamac Saciid ina Caashe Ciise 24 jira Cabdiraxmaan Cabdilaahi Bootaan ina Khadiijo Cali 19 jira dhibanayaal ka yihiin Maxamed Axmed Cali iyo Khadiijo Salaad Cabdi iyo Bukhaari Aadan Siciid maxkamaddu markay aragtay qodobada lagu soo eedeeyay ee xeerka ciqaabta 452 farqada 3 470 468
325 iyo 158 qodobadaasoo tilmaamaya falku lagu soo eedeeyay xoojintiisa oo ah ceebayn khalkhalgelin iyo ku galid awood guri dad kale leeyihiin isticmaal waxyaalaha hubka waaweyna maxkamaddu markay qiimaysay qodobada lagu soo eedeeyay wax ka weydiisay eedaysanayaasha maxkamadda horteed waxay kaga jawaabeen inkir inaysan gelin maxkamadda waxaa laga hor keenay saraakiishii soo qabatay eedaysanayaasha oo caddaynaya in faldambiyeedkii muuqaalka ah ay geysteen iyo muuqaalka soo gudbay oo baraha bulshada ay soo dhigeen kadib howlgalkii lagu beegsaday eedaysanayaasha lagu soo qabtay inay qiraal ka ahaayeen in kiiskaas ay galeen waxaa kaloo maxkamadda la hor keenay cadaymihii laga qoray oo tafatiran mid walba uu qeexayo siduu falku u dhacay oo ah in guriga ay galeen reerkaana ay handadeen fiidiyowga kilibkaana iyagu duubeen sababta ay u duubeenna ay ahayd in la soo adeegsaday oo loo soo adeegsaday in laga duubo gurigaas fiidiyow iyagoo la handadaada lagu hayo markii intaas ay maxkamaddu u soo gudubtay waxna ka weydiisay odayaasha dhibanayaasha qaybtood iyo eedaysanayaasha qaybtood waxaa maxkamaddu u caddaatay sidan soo socota kow in ay ku caddaatay qodobada 452 farqada saddexaad iyo 470 iyo 468 farqada labaad maxkamaddu waxay uga soo qaaday qodobada saddexda ah ee lagu soo eedeeyay yuusuf axmed cali ina xaliimo xaaji guuleed 18 jir ah 6 sano xariga saacid cabdirasaaq cismaan cabdulle axmed maxamed iyo cabdinaasir jaamac siciid iyo cabdiraxmaan cabdulaahi bootaan afarta eedaysane maxkamaddu waxay kaga soo qaaday qodobada uga soo qaaday 5 sano xariga dhammaantood waxay ka midaysan yihiin magdhow 158 oo ah faafinta dambiga ay galeen oo qarsoodi ahaa ay u faafiyeen bulshada Soomaaliyeed u soo gudbiyeen ummadana ay maaragtay la wadaageen wax aan munaasib ku ahayn sharciga iyo islaamnimada iyo qawaaniintaba sidaa darteed maxkamaddu waxay uga xukuntay dhibanayaasha magdhow midkiiba $4,000 sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaax madaxweynaha dalka Kenya ayaa isna xariga ka jaray isbitaal cusub oo lagu sheegay heerka shanaad waxa uu sheegay markii arintaasi ka hadlayay dawladdiisu ka shaqeynayso horumarinta dhinaca adeega caafimaadka madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa si rasmi ah xariga uga jaray isbitaalka guud ee magaalada Keyoga ee ismaamulka Kirinyaga waxaana madaxweynaha weheliyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay barasaabka dowladdeegaankaasi Anne Waiguru waxay hoosta ka xariiqeen maamulka gobolku in shacabku ay heleen isbitaal heerka shanaad ah oo laga hirgeliyay magaaladooda kaasoo bixin doona adeegyada caafimaadka ee gaarka barasaabka ismaamulka laga hirgeliyay isbitaalka ayaa intaasi ku daray in xaruntan caafimaad ay ka koobnaan doonto ilaa 356 sariirood oo la rajeynayo inay yareyso ciriiriga bukaanka ee ismaamulkaasi madaxweynaha dalka Kenya William Ruto xariga ka jaray isbitaalkaasi habka sare loo qalabeeyay loona dhisay ayaa sheegay in ballanqaadkoodu yahay dib u habeynta kaabayaasha isbitaalka iyo cusboonaysiinta qalabka caafimaadka waxaana uu sheegay inay hagayaan rabitaankooda ah inay sii wadaan muwaadiniinta in loo sameeyo adeegyo daryeel caafimaad oo tayo leh oo la awoodi karo si loo hubiyo buu yiri madaxweynuhu in la helo qaran shaqeynaya oo caafimaad qaba inta lagu guda jiray furitaanka isbitaalka ayuu madaxweynuhu sheegay in dawladda dhexe ee Kenya ay ka shaqeynayso baahinta adeega caafimaad ilaa iyo heer hoose
iyo in dalku helo cisbitaallo waaweyn oo adeegyada caafimaadka qaadi kara. waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqaynayso in mudnaanta la siiyo adeega caafimaadka ee dalka. waxa kale uu sheegay inay ballan qaadeen in la qalabeynayo hanaanka caafimaadka ee dalka iyo waliba agabka caafimaadka oo laga dhigayo buu yiri madaxweyne William Ruto mid heerkeedu sareeyo. cisbitaalkan oo sidoo kale ay ku jiraan qaybaha kala duwan ee qaliimada, goobaha bukaanada la dhigo, goobaha caruurta iyo hooyada iyo dhalaanka iyo qaybo kale ayaa loo dhisay qaab casri ah, waxaana uu ka mid noqonayaa sida uu madaxweynuhu ballan qaaday cisbitaallo la furi doono dalka oo dhan kuwaas oo adeegyo caafimaad oo tayo la bixin doona. madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa maanta xilliga 3 galabnimo ee maxalliga ee Miami ka soo hormuuqan doona maxkamad halkaasi ku taala isagoo lagu soo ogayo dacwado horle. Trump ayaa shalay Isniina dadaal ugu jiray inuu helo garsoorayaal difaaca kadib markii ay ka tageen garsoorayaashiisii hore dhinaca kale ay diideen garsoorayaal halkaasi ku sugan inay difaacaan. madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta ka soo hormuuqdo maxkamadda federaalka. dhinaca kalena wuxuu isku dayayaa inuu helo koox difaacda sida uu sheegay wargeyska Washington Post. dhowr qareen oo caanka Florida ayaa diiday inay Trump difaacaan kadib markii laba ka mid ah qareenada hogaaminaya kiiska dukumiintiyada oo la kala yiraahdo Tim Trusty iyo John Rowley ay iska casileen toddobaadkii hore. Trump waxa uu ka soo muuqanayaa dhageysigii ugu horeeyay ee dacwadda waaxda cadaaladda isaga ka dhanka ah isagoo wajahaya 37 eedeymo oo la xiriira dukumiintiya sira oo ay ku jiraan qaar ka mid ah siraha ugu xasaasisan dalka Mareykanka oo uu qaatay kadib markii uu ka tagay aqalka cad sanadkii 2021. dhinaca kalena wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in garsoore heer federaal uu diiday codsiga warbaahinta ee ah in si toos ah loo soo gudbiyo maxkamadda cod ama muuqaal ka hor maxkamadda Florida. go'aanka xaakimka ayaa imanaya saacado ka hor inta aanu Trump ka soo muuqan maanta oo Talaada maxkamadda Miami. madaxweyne hore Mareykanka ayaa beeniyay eedeymo loo soo jeediyay isagoo ku tilmaamay kuwa la siyaasadeeyay. maamulka ayaa ammaanka aad u adkeeyay agagaarka maxkamadda waxaana booliska Miami ay filayaan ilaa 50,000 oo mudaharaadayaal, taageerayaal iyo kuwa ka soo horjeeda Trump inay isugu soo baxaan aagaasi. duqa magaalada Francis Suarez ayaa ugu baaqay mudaharaadyada inay noqdaan kuwa nabdoon isagoo ku nuuxnuuxsaday in laamaha ammaanku ay heegan gali doonaan. daawadayaal intaasi waxaa ku dhan warkii fidnimo intaynu dib u kulmayna sidaas iyo nabad gelyo.